ma uusan filayn in sanadihii uu ku qaatay Syria iyo Mareykanka barashada caafimaadka iyo cilmi baadhisaha la xidhiidha ay dhexgayn doonaan caalamka Hollywoodka iyadoo uu marayo filim soo bandhigaya sheekadiisa guusha ee ah inuu wariye daayir ka badbaadiyay cudur aad u naadir ah. Filimkan oo ciwaankiisu yahay Brain on Fire ayaa waxa uu ku saabsan yahay qiso ay qortay wariyada Susanna Cahalan oo ay kaga sheekaynayso sida ay ugu dhibaatootay xanuun dunida naadir ku kaasoo ay waxba ka qaban kari waayeen dhammaan dhakhaatiirtii xaaladeeda eegay marka laga yimaado hal dhakhtar oo lagu magacaabo Suhail Najar oo Suuriyaan ah. Suxufiyadan ayaa kaga hadashay qoraallo taxane ah oo ay ku daabacday wargeyska Mareykanka ee The New York Times waayo aragnimadeedii ay kala kulantay cudur naadir ah oo ku sigay in ay nolosheedu dhammaato hadduusan xaaladeeda soo gelin Dr. Suhail Najar oo ku takhasusay cudurrada ku dhaca neerfaha. Saxafiyadan ayaa sheegtay inay tusisay kiiskeeda dhakhaatiir badan oo takhasusyo kala duwan haysta xataa dhakhaatiirta ilkaha, balse sida ay xustay dhammaan isku dayadaasi waxa ay ahaayeen kuwa natiijadoodu quus noqotay. baadhitaanadeeduna waxa ay ku soo dhammaadeen natiijooyin taban. Gabadhan da'da yar ayaa marba xaalad qariib ah muujinaysay. Xilliyada qaar qaylo ayaa ay bilaabi jirtay, mararka qaarna qosol, xilliyada qaarna isla hadal iyo khayraad fara badan, waxaana ay xaaladani aad uga yaabisay xubnaha qoyskeeda. xanuunka gabadhan yar ku dhacay oo lagu magacaabo anti-NMDA receptor inconflatus waa cudur neerfaha ku dhaca oo markii ugu horreysay uu caddeeyay Dr. Joseph Dalmay iyo asxaabtiisa jaamacadda Pennsylvania sanadkii 2007 iyadase waxa uu haleelay xanuunkani sanadkii 2009 markaasoo ay da'deedu ahayd 24 sano kana howlgeli jirtay wargeyska New York Post. waxa ugu dambeyn loo yeedhay Dr. Suhail kaasoo waraysi la yeeshay qoyskeeda muddo hal saac ah, kadibna waxa uu ka codsaday gabadhii yarayd in ay sawirto saacad. markii ay bilowday sawirka waxa ay sawirtay goobo ama wareeg dhammaan lambaradii saacaddana waxa ay iska xejisay hal dhinac oo dhanka midigta ah, taasoo u muujisay Dr. Suhail inay qabto dhaawac dhanka maskaxda ah oo ay xaqiijin kari waayeen dhakhaatiirtii isaga ka horreysay. baadhitaan kadib waxaa la ogaaday in qaybta midig ee maskaxda gabadha uu ka muuqdo caabuq aad u ba'an kaasoo u baahan qalliin meesha lagaga saarayo qayb ka mid ah optical lobe-ka, taas oo xaaladeeda sidii caadiga ahayd ku soo celinaysa. dhowr bilood kadib gabadhii suxufiyadda ahayd ee reer Mareykan ayaa caafimaadkeedii soo ceshatay waxaana ay qortay buug ku guulaystay abaalmarinta sheeko wanaagga ugu fiican. buugguna waxa uu ka mid noqday buugaagta ugu iibsiga badan sida ku cad New York Times oo ciwaankiisu yahay Brain on Fire oo ay ku sharaxday dhibaatada ay ka soo martay xanuun soo afjari gaadhay nolosheeda haddaanay caawimaad ka helin dhakhtarka mucjisada ah ee Suhail Najar oo aan kaliya soo celin caafimaadkeeda laakiin sidoo kale soo celiyay rajadeedii, jacaylkii nolosha iyo xiisihii shaqo sida ay hadalka u dhigtay. sheekada gabadhan waxaad si hagaagsan ugaga bogan kartaa filimka laga jiray qisadeeda ee lagu magacaabo Brain on Fire kaasoo soo baxay sanadkii 2016.